Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkeena cusub Eco Friendly Girls. waa mar kale iyo barnaamijkeeni wacyigelinta bulshada oo ku saabsan barashada deegaanka. Fadlan please like, share and subscribe. Waxaan halkan kusoo jeedin doonaa wacyigelin taasoo ah maxaa la lahaa deegaan. bulshadeena sida wada ognahay ma fahansan wax la dhaho deegaan. deegaan waxaa wax walba oo nagu hareeraysan kaas aan ku noolnahay sida hawada, biyaha, ciidda, dhirta, xayawaankii anakaba taasoo ah midba mid isku wada xiran. haddii mid ka baxo deegaankaas oo naga baxo waa mid ka kale oo ku tiirsan yahay. sida dhirta haddii naga baxdo dhirta waa ku tiirsanahay. dhirta maanta haddii aan weyno cunnada waa weynayna xayawaan cuni jira xayawaanka anaga waa sii cunaa marka waa food chain wax isku xirxiran. haddana waxaan noo sii sharxi doonaa baatig ka mid ah walaasheena Suweeda. saaxiibayaal sidee walaasheena Farxiyo idin soo sheegtay introduction of environment ayay idin ka soo hadashay. waxaa guud ahaan environment loo qaybiyaa laba qayb ayaa loo qaybiyaa biotic iyo biotic. haddii aan ka hadlo biotic wax la dhahaa biotic maxaa la dhahaa waa wax walba oo nool oo koonkan saaran. maxaa ka mid ah bini'aadamkii ka mid ah dhirtii ka mid ah xayawaanadii ka mid ah everything oo nool waxaa la dhahaa biotic ah lahaa. walaasheena Suweeda waxay ka hadashay waxa lagu magacaabo biotic oo ah wax nool. waxaana wada ku wada jirnaa barashadeena environment-iga oo loo kala qaybinayo laba qaybood oo ah biotic iyo abiotic. hadda aniga waa magacayga Farax waxaan ka hadli doonaa waxa lagu magacaabo abiotic. abiotic maxaa waaye? abiotic waa wax walba aan nooleen dunidani aan saaranahay aan ku dulnoonaan baahi weyn aan u qabno. maxaa ka mid ah abiotic? waxaa ka mid ah air hawada, waxaa kaloo ka mid ah biyaha aan u baahanahay nolosheena aad iyo aad ugu baahan tahay, iyo waxaa kaloo ka mid ah climate cimilada aan ku dulnoonanay raining roobka. waxaa kaloo u baahanaana ka mid ah temperature-kii ka mid ah soil caradii aan u baahanahay aad iyo aad u baahanahay sababtoo cara la'aan ma awoodi karno inaan cunto samaysano.